marka arday xoog u sheegata oo si qarsoodi ah u dhintay uu mar kale soo kaco isagoo ah jini aargudasho ah oo ka yimid dhimashada kadib. Filimku wuxuu ku furmayaa isagoo muujinaya kayn mugdi ah oo ay ka buuxaan ceeryaamo qarweyn. meeshaas waxaa ku yaal Shaakir oo samaynaya caado jini ah oo ay weheliyaan shakhsi qarsoodi ah oo aan weli la aqoonsigiisa. Shaakirku wuxuu abuuraa dhaxal habaaran oo laga sameeyey gariiradaha abeesada iyo boqol. labadan xayawaana waxaa ka soo baxaya calaamad muujinaysa tamar xun oo ku dhex jirta shayga. Shaakirku wuxuu markaas leeyahay, ma rabtaa inaad soo noolayso qof hore u dhintay? sheekadu waxay dib ugu soo noqonaysaa hal toddobaad ka hor dugsi sare oo sare ah. waxaa la qabanayaa ciyaar kubadda laliska ah oo haweenka ah oo dugsiyada dhexdooda ah. ciyaartoydu waa arday la soo xulay oo leh hibo gaar ah. ciyaartu waa mid aad u daran iyadoo labada kooxoodba ay si dhow u raadinayaan dhibco. mid ka mid ah dugsiyada waxaa hogaaminaya Busaba oo ah kabtanka kooxda ciyaartana ugu dambeyntii waxaa ku guulaystay Busaba iyo kooxdeeda. Busaba waxaa lagu sawiray inay tahay kabtan adag oo garoonka dhexdiisa ah. intaa ka sokow sidoo kale waa ardayada ugu cabsida badan dugsiga. marka laga reebo kubadda laliska, nolol maalmeedkeeda dugsiga Busaba badanaa waxay raadisaa dhibanayaal si ay u xoog sheegtaan iyagoo si joogto ah lacag uga qaata ardayda kale ee dumarka ah. dan kama laha cidda ay yihiin ama sida ay qoysaskoodu u taajirsan yihiin. Busaba waxay xoog sheegtaa qof kasta oo ay rabto. maalin maalmaha ka mid ah, macallin ayaa yimid iyadoo la socota arday cusub oo ka timid dugsi kale. waa Jindara. si kadis ah waxaa fasalka ku jirta arday hore u taqaanay Jindara oo ah haweeney lagu magacaabo Hong. dhowaan ayaa la shaaciyey in Jindara ay sidoo kale ahayd kabtanka kooxda kubadda laliska ee dugsigeedii hore, taasoo ka dhigaysa Busaba inay dareento feejignaan iyadoo ka baqaysa in booskeeda kabtanimada la handado. Jindara waxay la fadhidaa gabadh aamusan oo lagu magacaabo Osa oo inta badan noqota bartilmaameedka xoog sheegashada Busaba. marka laga reebo Arasa, Hong sidoo kale way joogtaa maadaama ay ahayd saaxiibka Jindara tan iyo dugsiga sare ee hoose. maqaayadda Busaba waxay mar kale dhibaato ku keentaa iyadoo lafaha digaaga ku tuurta miiskooda. waxay sheegtay inay hore u cagta saartay saxarada bisadaha iyadoon la sheegin. Hong isla markiiba way fahantay oo waxay bilowday inay nadiifiso kabaha Busaba. iyadoo ay jirto xoog sheegashada joogtada ah ee Busaba, macallinku wuxuu u muuqday inuu indhaha ka qarsaday sababtoo ah waa qofka keliya ee ugu fiican oo arday guul sare leh oo inta badan sharaf u keenta dugsiga iyada oo loo marayo tartamada kubadda koleyga. tani waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee Busaba aan loo eryin, inkastoo ay marar badan cagajuglaysay ardayda kale. macallimiintu waxay u muuqdaan inay iska indha tirayaan dhaqankeeda xun. intii lagu jiray kalfadhi tababar kubadda koleyga ah oo ka dhacay garoonka, Busaba mar kale waxay raadinaysaa dhibaato sidii inay tahay waajib. markan bartilmaameedkeedu waa sababtoo ah weli ma aysan wareejin lacagtii Busaba dalbatay. waxaa lagu ciqaabayaa iyadoo lagu qasbay inay iska caabiso kor u kaca awoodda badan ee Busaba. inkasta oo ay ka timid qoys aad u taajirsan, waxba uma tarin Busaba, taas beddelkeedana way ka faa'iidaysataa. iyada oo aan awoodin inay sii taagnaato, Jindara ayaa soo gashay oo xanibtay kor u kaca Busaba. Jindara Busaba ku boorisay inay tijaabiso xooggeeda iyada oo u maraysa kor u kaca. haddii Jindara laga badiyo, waxay diyaar u tahay inay qaadato booskaya. laakiin haddii Busaba laga badiyo, Jindara waxay dalbanaysaa inay joojiso waxaas oo dhan. iyada oo aan ka warqabin xirfadaha kubadda koleyga ee Jindara, Busaba waxay ku dambayn doontaa inay hesho kor u kaca xooggan. iyada oo dareemaysa in kibirkeedu uu burburay qof walba hortiisa, Busaba way xanaaqdaa oo dagaal ayay ku dhowdahay. way jabtay, laakiin tababaruhu si dhaqso ah ayuu u soo farageliyey oo u kala furfuray. tan iyo dhacdadaas, Jinda, Hong, Orasa iyo aad bay isugu soo dhowaadeen waxayna samaysteen saaxiibtinimo xooggan. dugsigu wuxuu sidoo kale leeyahay hoy loogu talagalay ardayda, kaas oo ay kiraysan karaan meel ay ku noolaadaan. intii ay wada sheekaysanayeen, taariikhda Jindara si kooban ayaa loo shaaciyey. waxaa soo baxday in tan iyo dugsiga sare ee hoose, Jindara badanaa la dhibaatayn jiray. markii hore way aamusnayd, laakiin ugu dambayntii waxay ku dhiiratay inay iska difaacdo. tan iyo markaas cidna kuma dhicin inay mar kale dhibto. Arasa waxay sheegtay in iyadoo Jindara ay hareeraheeda joogaan, ay hadda leeyihiin geesinimo ay kula dagaalamaan Busaba sababtoo ah si ay u joojiyaan Busaba, qof waa inuu noqdaa mid geesinimo leh oo u istaaga. si kastaba ha ahaatee, wakhtigaas Jindara way aamustay mana ka jawaabto hadalka. taa beddelkeeda waxay weydiisay taariikhda Busaba iyadoo la yaaban cidda Busaba dhab ahaantii tahay. markaas waxay sharaxaysaa in Busaba aysan had iyo jeer sidan ahayn. kadib markii ay fasax hal sano ah ka qaadatay dugsiga kadibna ay soo laabatay, dabeecadeedu waxay bilaabatay inay isbeddesho. waxaa jira warar xan ah oo sheegaya in sanadkaas fasaxa ah, Busaba ay uur yeelatay oo ay ka takhallustay ilmaha. muuqaalku wuxuu markaa u wareegayaa Jinda oo ku taal meel lagu dhaqo oo nadiifinaysa wasakh goonnadeeda ah. iyada oo aan ogayn, arday kale ayaa gadaasheeda ku sugaya. Jindara waa qurux badan tahay oo maqaar cad leh, waxayna soo jiidataa wiilasha arkaya. wakhtigaas waxaa ka dhex muuqday iftiin soo jiidasho leh. wiilka dhallinyarada ah waa Gun. nasiib darro, Gun wuxuu horay u lahaa saaxiibad Busaba. Ben mar kale Busaba waxay weydiisatay Jindara inay si gaar ah ula hadasho. waxay sheegtay in kadib dhacdadii garoonka kubadda laliska ay ka heshay ganaax macallinka isboortiga haddii ay mar kale dhibaato geysato, fursaddeedii ku aadanayd jaamacadda waa la laali doonaa.
sababtaas awgeed waxay rabtaa inay heshiis la gasho Jindara waxayna weydiisatay inaysan jirin khilaaf dambe oo dhexmara. Jindara si farxad leh ayay u aqbashay niyad wanaagan muuqda. Sheekadu waxay sii socotaa iyadoo Jindara iyo Gun ay bilaabeen inay isdhexgalaan baraha bulshada. Lama dafiri karo in Jindara ay bilowday inay dareento inay soo jiidatay Gun oo xitaa si xariifnimo leh ayay ugu dirtay sawir yar oo soo jiidasho leh si ay uga qosliso. Ugu dambeyntii Gun waxay weydiisatay Jindara inay la kulanto. Fursadeeda jacaylka Gun wuxuu u muuqdaa mid si ballaaran u furmaya markii Jindara si kama ah u aragtay Basaba oo la socota tababaraha kubadda laliska ragga. Maalintii xigtay Basaba ayaa mar kale u soo dhawaatay Jindara, markan waxay weydiisatay caawimo si ay ula socoto arday doonaya cashar gaar ah. Jindara iyada oo aan shaki qabin waxay si ikhtiyaari ah u ogolaatay inay Basaba geyso halkaas. Si kastaba ha ahaatee, markii ay timid, Jindara waxay ogaatay in la keenay meel ay ka buuxaan rag hadsan. Si aan naxariis lahayn, Basaba waxay Jindara u iibisay, taasoo ku qasabtay Jindara inay si quus ah ula dagaalanto ragga. Nasiib wanaag waxay ku guulaysatay inay baxsato. Iyada oo dareemaysa in tani ay aad uga gudubtay xadka, Jindara way carootay waxayna la kulantay Basaba dugsiga. Laakiin maadaama aysan jirin wax caddayn ah, wax badan ma qaban karto. Intaa waxaa dheer, xanaaqa Jindah waxaa duubay arday kale taasoo keentay inay is-celiso si ay uga aargudato xanuunka iyo ceebta ay Basaba geysatay. Jindah waxay qorshaysay qorshe kale oo ah inay Gun ka qaadato Basaba. Jindah iyo Gun waxay isu diyaariyeen inay kulmaan. Laakiin nasiib darro, ka hor inta aysan sidaas samayn, Basaba waxay bilowday inay dareento in Gun ay leedahay haweeney kale noloshiisa. Muran xooggan ayaa soo ifbaxay dhexdooda. Gun oo horay uga daalay Basaba ugu dambeyntii si daacad ah ayuu u hadlay wuxuuna qirtay inay runtii jirto haweeney kale oo uu xiisaynayo. Gun ayaa markaa ka tegay isagoo keligiis ka tegaya Basaba. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu hilmaamay taleefankiisii gadaashiisa markii uu dib u soo jeestay si uu u soo qaato. Basaba si lama filaan ah ayuu u mindiyey qori. Iyada oo gebi ahaanba indha tirtay, Basaba dan kama laha waxay samaynayso. Dhacdada kadib, maamulka dugsigu iyagoo aad uga cagajiidaya ayaa ugu dambeyntii Basaba ka saaray dugsiga. Tani waxay noqotay qoomamo qoto dheer iyo dharbaaxadii ugu adkayd nolosheeda. Waqti kadib, dugsigu mar kale ayuu ruxay markii la ogaaday in Basaba ay isdishay. Jindara iyo asxaabteeda ayaa ka qayb galay aaska si ay u tukadaan oo ay u maamuusaan. Si lama filaan ah, Yo waxay bilowday inay dareento xanuun waxayna Hong go'aansatay inay gurigeeda geyso iyadoo ka tagtay Jindara iyo Orasa. Dhanka kale, meel kale oo ku taal goobtii Basaba ku dhimatay, waxaa la arkay nin shaahid ah oo samaynaya caado qariib ah. Isla mar ahaantaana, inta lagu jiro salaada janaasada oo ay hogaaminayaan wadaado wax aan dabiici ahayn ayaa dhacaya. Dhawaaqa haweeney ooyeysa ayaa bilaabaya inuu dhawaaqo, jawiguna wuxuu noqonayaa mid aad u cabsi badan, iyadoo dabaylo xooggan ay dhacayaan oo nalalka damsan yihiin. Iyadoo ay fowdo jirto, Jindara waa la riixay oo dhulka ayay ku dhacday. Isla waqtigaas, naxashka Basaba ayaa dumay oo hortiisa ka furmay Jindara. Markii ay ku laabatay qolka jiifka, Jindara weli ma rumaysan karto waxay aragtay, gaar ahaan sida naxashka si lama filaan ah u furmi karo. Si kastaba ha ahaatee, afartooduba waxay isku dayayaan inay isdejiyaan oo ay rajaynayaan in wax walba ay hagaagi doonaan. Saq dhexe ee habeenkii, halka kuwa kale ay hurdo dheer ku jiraan, Orasa way soo toostay kadib markii ay aragtay kursi keligeed dhaqaaqaya. Argagax iyo cabsi ayaa ku soo booday iyadoo isku dayaysa inay toosiso Jindara. Laakiin Jindara aad bay u daashay oo uma jawaabi karto. Ruuxii warwareega ahaa ee Basaba ayaa ka soo muuqday Arasa korkeeda. Saaxiibadeed ugu dambeyntii way soo tooseen oo waxay isku dayeen inay dejiyaan, iyagoo ku qancinaya inay riyo uun ahayd, dhammaantoodna way seexdeen. Laakiin Arasa, riyada xun ayaa sii socota. Hadda waxay is aragtaa iyadoo taagan derbi dushiisa, jirkeeduna wuu laalaadaa iyadoo isku dayaysa inay qayliso, laakiin afkeedu wuu diiday inuu dhaqaaqo. Xadhig ayaa si tartiib ah u soo booday oo qoorteeda ku duuban. Arasa waxay si quus ah u halgamaysay ilaa ay madaxeeda si xoog leh u burburisay ruuxa Basaba. Waxay noqotay tii labaad ee ay la kulanto. Riyo xun. Dugsiga fowdo ayaa mar kale soo baxda marka haraadiga hadiyadaha caadada laga helo garoonka ciyaaraha. Jindah iyo kuwa kale ayaa jooga waxayna su'aalo ka weydiiyaan shaqaalaha xanaanada ee dugsiga ku saabsan hadiyadaha. Haweeneydu waxay sharaxday inay yihiin raad ruux oo soo wacaya caado iyo astaamihiisa si cad waa nooc sixir madow ah. Caadada ayay tiri waxaa loogu talagalay in lagu dhawaaqo ruux argoosi ah. Waxay sii sharaxday in 3 maalmood gudahood ruuxu uu gaarsan doono bartilmaameedyadiisa. Maalinta ugu horreysa waxay ku cabsi gelin doontaa muuqaalo, maalinta ugu dambeysana ruuxu wuxuu dili doonaa dhibanaha iyada oo aan la heli karin baxsasho. Isla maalintaas argagaxa ruuxa Basaba ayaa bilaabmaya. Ruuxu wuxuu mid walba mid ugu muuqdaa. Ya wuxuu arkayaa ruuxa Basaba oo ka laalaada kadibna isagoo aan madax lahayn ayuu u soo degayaa. Kuwa kale waxay daawan karaan oo keliya jahawareerka iyadoo uu si yaab leh u dhaqmayo. Cabsida waxay ka bilaabmaysaa inay ka dhex baxdo. Sida laga soo xigtay shaqaalaha xanaanada, ruuxu wuxuu isu muujiyaa oo keliya dhibanayaashii uu doortay. Si kadis ah, haweeneydu waxay la joogtaa musqusha waqtigaas. Laakiin si lama filaan ah, waxay bilowday inay si yaab leh u dhaqanto.
nalalka musqusha ayaa si lama filaan ah u damay oo haweenaydii ayaa bilowday inay weerarto. Nasiib wanaag, Gun ayaa wakhtigii ku yimid oo furay albaabka musqusha ee qufulan. Haweenaydii ayaa miyir qabta islamarkiiba waxaa loo qaaday isbitaalka. Gun horeyba wuu u yaqaan wax walba maadaama uu sidoo kale ku dhibtooday ruuxa Basaba. Wuxuu qof walba u keenayaa ruux lab ah oo laga yaabo inuu caawiyo. Qofka wax yaqaanka ah wuxuu sharxayaa in ruuxa ay wajahayaan uusan ahayn ruux caadi ah, laakiin uu yahay mid ka buuxa argoosi qoto dheer. Kadib wuxuu ka codsaday kaaliyihiisa inuu keeno mindi barakaysan. Si lama filaan ah, iyadoo saamayn aan caadi ahayn oo Basaba ah, qofka wax yaqaanka ah si lama filaan ah ayuu mindi isku geliyey. Inkastoo uu si xun u dhaawacmay, wuxuu u sheegay inay helaan shaadhka oo ay ku shubaan kaadi bikrad barakaysan. Taas beddelkeeda waxay dili karaan shaadhka maadaama ay yihiin labada siyaabood ee keliya ee wax walba lagu joojin karo. Waa inay si dhaqso ah u dhaqmaan ka hor intaysan maalinta saddexaad dhammaan, sababtoo ah haddii ay ku guuldaraystaan dhammaantood way dhiman doonaan. Kaaliyaha ayaa markaa u dhiibaya kaadida barakaysan. Dhammaantood waxay isugu yimaadaan qolka jiifka iyagoo isweydiinaya cidda dhab ahaantii mas'uulka ka ah soo noolaynta ruuxa Busaba. Eedeymo ayaa bilaabaya inay dhex maraan, shakigana wuxuu ku dhacayaa Hong iyo sababtoo ah midkoodna ma jiro. Waxay ka soo qayb galeen aaska maalintaas. Hong iyo si adag ayay u beeniyeen, laakiin shakigu wuxuu markaa u wareegayaa aabaha Busaba iyo tababaraha kubadda laliska ee dugsiga maadaama midkoodna uusan joogin aaska. Shakiga ugu xooggan wuxuu ku wajahan yahay aabaha Busaba. Sida laga soo xigtay sheekada Gun, nolosha Busaba runtii aad bay u murugo badnayd. Aabaheed wuxuu ku dhaqmay sixir madow, waana suurtogal inuu isagu ahaa kan ka dambeeya wax walba. Si kastaba ha ahaatee, weli ma oga ujeeddadiisa dhabta ah ee uu u soo nooleeyey Busaba. Gun ayaa mar Basaba dib ugu celisay gurigeeda, waxayna aragtay in aabaheed uu ahaa nin khamri badan caba. Mar kasta oo uu sakhraansanaa, Basaba wuxuu noqon jiray bartilmaameedka rabshadihiisa, waana sababta ay uga carartay guriga oo ay u dooratay inay ku noolaato qolka jiifka. Ugu dambayntii waxay ku heshiiyeen inay raadiyaan aabaha Busaba. Haddii ay ku guuldaraystaan inay ka helaan jawaabo isaga, qofka ugu dambeeya ee ay la kulmi doonaan waa tababaraha kubadda laliska. Wax yar kadib, inta lagu jiro imtixaanka dugsiga, ardayda iyo macallimiintu way la yaabeen muuqaalka ruuxa Busaba. Waxay timid si ay u qaadato imtixaanka, xitaa waxay macallinka weydiisatay warqad jawaab ah. Dhacdadaas kadib, qof walba wuxuu ku ururay hoolka ciyaaraha, halkaas oo ay ku yaaliin tababaraha kubadda koleyga ayaa goobjoog ahaa. Jindara iyo Gun ayaa su'aalo weydiiyey, isagoo weydiinaya inuu yahay kii soo nooleeyey ruuxa Basaba. Tababaruhu si cad ayuu u wareersan yahay, wuxuuna dareemayaa inuu ku dhacay. Ugu dambayntiina wuxuu qirtay inuu ku lug lahaa Basaba. Si lama filaan ah, wuxuu ku dhacay ruuxa Basaba, taasoo xaqiijinaysa runta. Xiriirku kuma salaysnayn jacayl, laakiin wuxuu ku salaysnaa faa'iido labada dhinac ah. Busaba wuxuu u baahnaa qoondo jaamacadeed oo la hubo, tababaruhuna wuu bixin karaa shuruud ah in Busaba uu la seexdo. Waxaa ka sii daran, maamulaha ayaa sidoo kale ku lug lahaa, isagoo si qarsoodi ah ugu raaxaysanaya xiriir sharci darro ah oo uu la leeyahay Busaba. Dabadeed ruuxa Busaba ayaa ceebeeyey tababaraha, isagoo ku qasbay inuu ka dhuunto hortooda dhammaan ardayda. Wax yar kadib, tababaruhu wuu miyir daboolmay, qof walbana wuu ka naxay aragtida ruuxa Basaba oo ka dullaadlaadsan. Rajadooda keliya ee hartay waa inay helaan aabaha Basaba. Waxay jabsadeen gurigiisa, waxayna ogaadeen dalabyo badan iyo qalab loo isticmaalo caadooyinka sixirka madow. Shakigooda waa la xaqiijiyey markay arkaan sawir carruurnimo oo Basaba ah oo lagu soo bandhigay goobta cibaadada. Waxay burburiyeen meesha, laakiin dhowaan Busabas aabbihii ayaa yimid oo weeraray kadib markii uu ogaaday in caadooyinkiisu ay burbureen. Markii jidhkiisa lagu shubay kaadidii barakaysanayd ee uu sixiroolaha siiyey goor hore, aabbaha Busaba ayaa si xoog leh uga falceliyey, isagoo cararaya oo isku dayaya inuu ka fogaado, laakiin way eryadeen. Si lama filaan ah, Hong ayaa yimid isagoo haysta caruusad ay guriga ku heshay, isagoo sheeganaya inay tahay caruusad ruuxeed oo ay tahay in isla markiiba la burburiyo. Markay taas maqleen, waxay kaadidii barakaysan ku shubeen caruusada, saameyntuna waa isla markiiba. Aabbihii Basaba wuxuu la ildarnaa karma degdeg ah, isagoo ku dhacaya oo madaxiisa ku dhejinaya xayndaab bir ah oo fiiqan, taasoo dishay. Haddii aabbaha Basaba uu runtii ahaa kii soo nooleeyey ruuxeeda, markaas waa inay hadda ka xoroobaan habaarka. Laakiin waxay hubin karaan oo keliya marka saqda dhexe dhaafto. Waxay guriga la tagtay hooyadeed, halka Jindara lagu soo qaaday qori. Iyagoo wada socda waxay booqdaan dhakhtarka dhimirka oo hadda la dhigay isbitaal sababo la xiriira dhaawacyadii hore. Waxay siiyeen caruusada ruuxa, waxayna weydiiyeen in wax walba ay run ahaantii dhammaadeen. Caruusada maskaxdu waxay ku ammaantay inay si fiican ula maareeyeen xaaladda, taasoo siinaysa Jindara iyo Gun gargaar. Laakiin wuxuu sidoo kale kula taliyey inay ku tukadaan macbad si ruuxa Basaba ugu dambayntii ugu nasto. Nabad. Waxay ogaatay inay taleefankeedii ka tagtay macbudka. Waxay keligeed dib ugu laabatay iyadoo qori ku sugaysa gaariga. Intii ay socotay, Jindara waxay dhaaftay ganacsade waddo ku iibinaya sixir, mid ka mid ah alaabtuna waxay soo jiidatay dareenkeeda sababtoo ah waxay u eg tahay wax ay ku aragtay guriga aabbaha Busaba. Iibiyaha ayaa sharaxaya inay tahay matag doofaar duurjoog ah oo loo isticmaalo sixir si looga ilaaliyo jinniyada sharka leh.
Si lama filaan ah, Jindara waxay xasuusatay in Hong uu guriga ka helay shay la mid ah oo ay sheegtay inay ahayd caruusad ruuxi ah oo u baahan in la burburiyo. Waxay ogaatay in Hong ay been sheegtay. Jindara oo argagaxsan ayaa hubisay wakhtiga waxayna aragtay inay tahay 11:58 habeenimo iyadoo ka tagtay 2 daqiiqo oo keliya ilaa saqda dhexe. Dhanka kale, isbitaalka ruuxa Basaba ayaa weeraray ruuxa oo la dilay. Marka xigta, Gun ayaa noqday bartilmaameedka isagoo ku sugaya gaariga. Gaarigu si lama filaan ah ayuu u dhaqaaqay. Nasiib darro, qorigu ma baxsan karo maadaama madaxiisa lagu dhejiyey bir ah oo soo baxaysa. Jindara waa la waayay kadib markii uu arkay argagaxa. Waxay ku laabatay isbitaalka waxayna ogaatay in qofka wax dila uu dhintay iyadoo ka tagtay tooreydii quduuska ahayd oo keliya. Si aamusnaan ah, Jindara ayaa qaadatay. Waxay Hong u sheegtay in habaarku uusan dhammaan oo ay weydiisatay inay ku kulanto guriga Busosaba. Hong ayaa markaa la xiriirtay Arasa waxayna ku martiqaaday inay la timaado halkaya oo aan wax walba ka warqabin ay aaminsan tahay in wax walba ay dhammaadeen. Si lama filaan ah, ruuxa Busaba ayaa mar kale soo muuqday, Yana waxay noqotay dhibanaha xiga iyadoo la kulmaysa geerideeda. Dhanka kale, Hong si qarsoodi ah ayay Arasa ugu keentay hoolka ciyaaraha halkaas oo Basaba ku dhimatay. Arasa weli ma garan cidda dhabta ah ee Hong. Hong waxay Arasa weydiisatay inay raacdo caadada ay samaynayso iyadoo sheegtay inay joojin doonto habaarka. Dhanka kale, Jindara waxay joogtaa guriga aabaha Busaba. Ugu dambeyntii waxaa la ogaaday in Hong ay runtii tahay qofkii soo nooleeyey ruuxa Busaba. Jindara ayaa markaa ka heshay fariin Orasa oo leh waxay la joogtaa Hong hoolka ciyaaraha. Markii Jindara ay isku dayday inay dib ugu wacdo Orasa, taleefankeedii si lama filaan ah ayuu u dhintay. Oose waxaa la faray inay u tukato ruuxa Busaba oo ay cafis weydiisato haddii ay jiraan wax qalad ah. Wakhtigaasna Oose waxay raaligelin ka bixisay dilka Jindara, Gun iyo Ya. Markii uu maqlay qirashadan, Hong ugu dambeyntii wuxuu ogaaday in Busaba uusan isdilin laakiin dhab ahaantii la dilay. Afartooda. Sheekadu waxay